الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. waa 17 arday oo dhamaysatay xifdinta Qur'aanka Kariimka. Ardaydan ayaa xaflad dhiirigelin ah loogu sameeyay degmada Baxdo. Xafladda waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada, culimada waalidiin iyo marti sharaf kale. Intii ay xafladdu socotay waxay culimadu ka hadleen faa'iidada iyo khayrka ku sugan xifdinta Qur'aanka Kariimka. Macallin Cabdisalaam Sheekh Maxamed Sheekh Cali oo ah macallinka madrasada Andhiga ayaa ugu horeyn ka hadlay waxa ay ku saabsan tahay xafladan. Xafladda maqsadkeedu wuxuu yahay Qur'aanka Kariimka sharafkiisa in la muujiyo, taas oo ah wax muhiim u ah bulshada ilaahay agtiisana wax weyn loo gaarayo insha Allah. Qur'aanka marka waxaan rabaa inaan la wadaago marti sharafta sanadkii dhaweeta qayb ahayd ardo oo ilaa 7 arday meelahaas iyo sanadkan hadda miiska noo saaran oo qalin jabiyay. Qayb sanadkii dhaweeta ay qayb hadda marka isku goynaa 17 arday waaye. marka kulli waa la arki doonaa. waxaan marka ula jeednaa waxay tahay dadku in macnaha quraanka sharafkiisa in la muujiyo, ardadana lagu dhiirigeliyo, dhinac kasta kuwa qalin jabinaya iyo kuwa dambe intaba inay wax ka dhigtaan oo dhiirigelin ay ka dhigtaan. dadkoo dhanna quraankii uu qofku dhameeyay qiimeyn gaar ah u leeyahay in la qiimeeyo oo ay macnaha xafladda saas macnaha ay waxay qusaysaa bandhig inuu quraanka dhameeyay ah. xafladaha la dhigo adduunka mid ugu muhiimsan inay tahay aan aaminsanahay. Sheekh Qaasim Macallin Axmed ayaa baraarujin u soo jeediyay dadweynaha meesha isugu yimid asagoona ka hadlay faa'iidada iyo xifdinta Quraanka iyo aqrintiisa. Quraanka qofka barta oo xaafidka ah waxyaalaha oo dheeraadka leeyahay waxa kamid ah qofka Quraanka barta ee xaafidka noqda haddii la xanto oo wax uusan rabino aan wanaagsanayn laga sheego kabaa'irta ayaa lagu tiriyaa, dambiyaalka waaweyn baa lagu tiriyaa. qofkii xaafida qofkii maaragtay sare u qaada oo ixtiraam dheeraada ku sameeya waxa weeye ilaahay weynayntiisay ka mid tahay. qofka xaamilka ah quraanka xumbaarsan oo xaafidka ahi dheeraad badan buu wataa. waxaan leeyahay quraanka dhalinyarta iyo dadka kaleba quraanka in la barto laguna camal falaa lagu dadaalo. quraanka haddii la barto lagu camal falin waa culays badan yahay. maaragtay markastaba waa wanaag laakiin sidii la rabay ma noqonayo. marka waxa aad u nasiib badan afar ninkii hela baa la yiri. waxa la yiri walad wanaagsan qoftu ilaahay siiyo wuu nasiib badan yahay la yiri. waxa ka nasiib badan baa la yiri qoftii diinta geystay aka nasiib badan. waxa ka nasiib badan baa la yiri qoftii diintii haduu geystay diinta lama dadku uma wada fahmaan quraanka uma wada fahmaan dadka uma wada fahmaan. ninkii quraankii caruurkii oo u qaatay oo u bartay oo xaafido u noqday qofkaas nasiib dheeraad laha la yiri oo ka sii nasiib badan.
gudoomiyaha degmada Baxdo ayaa dhankiisa kula dardaarmay macallimiinta dugsiga Quraanka inay xafladahan oo kale u sameeyaan ardayda dhamaysa Quraanka. xaflada qiimo badan loo sameeyo oo diinka sida Ilaahay u qiimeeyay inaguna aan u qiimeeyno xafladahan iyo kuwa kasii qurux badanba in loo sameeyo runtii way mudan yahay Quraanku in la karaameeyo wuu mudan yahay in maaragtay sare loo qaado wuu mudan yahay in xaflad kasta oo la qabto mid ugu quruxda badan ay noqoto tan Quraanka lagu qatimayo taasaan rabaa inaan insha Allah tacaala dadka iyo macallimiinta waan ku baraarujiyo runtii xafladan waa xafladihii aan tagay xaflada ilaa qiimaha badan maxaa yeelay meel Quraanka Ilaahay arday soo baratay qatimkoodii laga soo qayb galay oo la yiri ka soo qayb gal waa xafladii ilaa qiimaha badnayd waan ka soo qayb galo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa intii soo wacday oo iyo dadkii juhdiga ku bixiyay xafladan diyaariyada. sidoo kale qaar ka mid ah waalidiinta ardaydan ayaa aga mahad celiyay macalinka juhdiga iyo dadaalka uu ku bixiyay caruurtooda. marka hore waxaan leeyahay macalinka dulqaatay Cabdisalaam oo imaan kale oo dadaalay aan u jeedinayaa waxaan ku leeyahay dad waxaan iska guurtiyo wadna taqaan ama reebaadiya dulqaadkaaga iyo sharaftaada haddaan karaama ku helin waa iska dayacan maandhow dadaalkaas baan kaaga mahad celinayaa iyo kartidaas haddaan kaashi ay helo iskaashan dawlad ma noqoto diintii oo ka qayb badan haddaan isla kaashi la helin waxba hagaagi maayo nin xabisan oo ilmo yar inta u keentay uga dhaqaaqdo waxan baa ka imaanay waa beer gubanaysa aadan u jeedin